gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishaay gedka habo uga faraaratada dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu kadib ilaahay baa mahadle waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina si aad xafladan ballaaran uga soo qaybgalteen waxaan kaloo mahad u celinayaa guddoomiyihii ugu horreeyey saaxiibka yuxidda ugunti cabdullaahi ciise axmed waxaan leeyahay guddoomiye waa mahadsan tahay runtii wuxuu soo qabtay shaqo fiican waxaana filayaa aniga iyo tiimkaygu inaan ka abaqaadi doono meeshii oo wax gaarsiiyo haddii aqoon waxaan kaloo halmaami karo mahad ballaaran u celinayaa ciidamada qalabka sida oo suuro geliyay inaynu isku dhimaano xafladaan isugu dhimaano oo ammaanka sugayey meel kastoo ay joogaanba ilaahay waxaan uga baryay inuu guusha gacantooda geliyo rabbina ay tala saartaan intaa kadib waxaan rabaa khudbadeeda inaan dhowr arrimood digadda saaro qodobka koowaad amniga horumarka gobolka iyo siyaasadda gobolka waxaan ballan qaadayaa aniga iyo tiimkaygu inaan isku xirno dhammaan degmooyinka gobolka annagoo si dhow la shaqayn doona maamulka degmooyinka iyo hay-adaha amniga si loo helo amni sugan oo wada shaqeeya waxaan rabnaa inaanu gaarno haddii alla idmo degmo walba iyo tuulo walba oo dadkay uu ku nool yahay soomaalidu waxay ku maamaadaa doqone hasheeda wadalkaba yaruuqsato waxaan madashaan ka codsanaynaa la isugu yimi ilaa loo shaqeeyo الله حريستي أبو سلوش محمود ويري كوالجسك يعين كوالجس كوكيجا من نقول مرة من جديد في النمو جمع الإبلاغ وقرنا دوبر كاسي وحريتنا نقطان لبكي أنا وعلى الجمعي وأنا كوش لهم لقينا جو سلام الله بالله تيم كيبو وحريتنا قفكستو كنا الجمل كنوجال إنه نبات كسيحه نبات كسر توصل هذه الله إنه ما دام يهرت على أول بلارة الأبني وحاجة على رأس كي ما كان أبني ويبوه الرئيسه تربوه أنا ما أقولكم كأنكم مربع الله صوصانك وعلى إسكع على استي وعلى ورلا يا قبسك قليل بيسير ما شاء الله كشيء يرجع اللي على قبسك قليل بيسير واحد ما قبسك قليل إنه ظهر تلو كتب صور فيلم كاسوا حمي باب كاسوا حمي كبحوا كلنا يجيب كتب تجرينا كوان توان وشجعين وحن مرة الله الماني كريم ويلا عن ماشى عن كسارين هو تهريب ياشا وضبط مرول كيسة يرى وماشى تذكر بدأي هاي تهريب ليس أنت أصلا أنا يتيم كل والله تجاوبنا إذا الله يعدي أنا كم والله إذا ودك تهريب ليس أو أنا كم والله شرعي أنا هرجين دون هدي الله يبي أريمها صوتا وحاصل كل مغفر عدالة أنا يتيم كل وعم كشرين دون هدي الله يبي عدالة أريمها واحد يرجع عدالة ويا سيدي عوشة رياح لكن أنا هو بدليو وعلينا تنعدل وسيدي عوشة كريا ما هي هذا مرة كان نحن قاعدين كهو حكرانو تشيل دوغيك وهو مرة أنا هاي السياسة أنت وغير كل بس لما تذكروا وهذا العدالة وسيدي عوشة كريا عدالة وكشغل دون هذا الله كريا وحقيب سجا وكسر يسقط يالدها سيدا غير وضعي تشرشر حفيز كي كما شغين دونا ذاتك غير مغادر وهو أكتنا شرع هرتي سوا أسميه حفيز كي غير أسميه حديث إيمانه هم حقيب سيئو قبلية وعامل بحين دونا ما أحكم ربنا وقفنا على استاوية للعداء الله
horumarka gobolka waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dhiirintii waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dabaalgelinno mashaariicdii horumarineed ee socda gobolka oo aanu caqabad ku noqon waxaanu dhiirin gelinaynaa barnaamijkii madaxweynaha dowladda ku dhawaaqay oo ahaa waa isku tashi waa dhiirin gelinaynaa cid kastoo reer puntland gaar ahaan gobolka nugaal waxaanu soo dhaweynaynaa inay isku tashi ka samayso oo ka qayb qaadato horumarka bulshada iyo danaha dalka saad la socotaan dhawaan waxaa kormeer wafti uu hogaaminayo shaqaale gaadaale ku tegay wadada ay sahab baa la soo sameeyey arrintaasu meel fiican bay maraysaa waxaan ka codsanaynaa dadka reer nugaaleed ay budib u noqdaan oo wadada ay shaqadaas laga wada qayb qaato kulligiisee loo dhigay waa hubaa shaqaadan hadduu hawshaa u kacay inuu kaga dhawayn doono annaguna waa la garab istaagaynaa haddii alla idmo dhinacaanu iska taagaynaa naf iyo maalku u obri doonaa idinkana saasaa laydinka rabaa aniga lafteedu haddee maadaama aan la kulmay shaqadaas oo socota qoladii waftiga qoladii waa joogaan bayla tahay oo ka shaqayn jirtay wadada guddiga gudaha ka joogay waxaan bixinayaa anuu $10,000 baan ku deeqaya haddii warmaysaan bayla tahay xoolihii dowladdu bixiyay xilka haddaa baa la wareegay waxaygaa bixinayaa gaalay siyaasadda gobolka dowladda anaga wakiil waa waxaanu soo dhaweynaynaa kala fakaraduwaashaha siyaasadeed qofna dhibsan mayno qofna dhinac gaar u fiirin mayno hadduusan ammaanka lid ku ahayn arrintaada u fiirsha hadduusan ammaanka lid ku ahayn oo ammaanka dhibaato ku ahayn waa soo dhaweynaynaa laakiin hadduu ammaanka dhibaato ku yahay oo laba cunug oo reer buntland gaar ahaan gobolka nugaaleeda waxa qof ku hadlaya ay dhibaato keenayaan arrintaas daan laaniga tiimkaygu uma dulqaadanayno wax dadka dhibaato ku keenaya ma dulqaadanayno waa qabanayna haddii alla idin waxaa ugu dambayntii baa u dirayaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya xuduudda gobolka sool iyo nugaal waxaa ugu baaqayaa xabadeenna joojiyo dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho odayaasha iyo cuqaasha iyo isimada iyo aqoon-yahaninta ganacsatada waxaan ka codsanayaa arrinta inay door weyn ka qaataan iyo haweenka annaguna haddii alla idmo kornol ahaan arrintaas door weyn oo muhiim baan ka qaadan doonaa khudbadaydii maanta intaasaan kusoo koobayaa wixii kale dowladaha dambe iyo shirarka dambe aan yeelan doono haddii alla idmo iyaduna kaga wada hadli doonaa wixii gaargaara iyo wixii guudguud wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله سبحانه وتعالى تلياشا الى المضى تلياشا وليجالة نبض الله الصحفيين كمان صاحب تلياشا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانوا وحرين وحنا الدنيا حسوب قبل كان ورحمه الله عمليو الدنيا وراء قبل كان ورحمه الله عيسى وحنا هاي وما صار شغلي ونفسي هذا صوتي هذا الكوران كيسي انتي هو بيسياتي عمر ايام الداميه قرات الداميه وعلى عمر وهذا هي سرقال المدي سقيمه بلكوله شرف كله كنت لان وسو شقيي سومالي وسو شقيي يدو واسد علاله umada Soomaaliyeed ee Puntland iyada noo ilaali sharafteeda noo ilaali وهذا هي امنيga maamulka in ilaaliya amnigaasna ku fiican maanta maamulka ayaa hoggaankiisa lagu dhiibay waxa qaadataa halbeelkii halyeeyii Soomaaliyeed Cabdulaahi Xaaji Masale oo yiri isagoo ah sargaal ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida Soomaaliya markii laga dhigay wasiirka caafimaadka warsadan iyo 5 sano askari ahaa uu yiri oo waxaan baranayay sida loo dagaalamo iyo sida wax loo dilo maanta waxa la yidhi sida naf loo badbaadiyo waxaan codsanayaa in la igu caawiyo sida la igala shaqeeyo intaas marka maadaama amniga aad ku sharaf ku lahayd oo ku fiicnay hadii hoggaanka lagu dhiibay waxa u baahan tahay qof kaliya guuleystaa ma jiro ragii aad ku guuleysan lahayd inay garbaha noqdaan la tashi aad samaysid ragii kaaga horeeyay shaqada iyo ragga kala kugu biirin kara intuba ay garbaha ka fadhiyaan shaqeeyo ku noqdaan dalka baa badan buu qabaa
intii nabadoonnada iyo gabdhaha iyo aqoon-yahanku ay sheegeen waxaan kula dardaarmayaa nolosheenna waxaynu nahay xoolo dhaqato nolosheenna waxay ku xiran tahay xoolaha waxaynu dhoofinno waxaynu dahabka iyo shidaalkeenna oo ka qiimo badan waxaynu 25 sano oo dowlad la'aan aynu kaga soo baxnay waa xoolaha xooluhu waxay ku nool yihiin deegaankiina maanta xaalad baa ku socda dirtii oo la jarayo balliyadii iyo xufooyinkii oo la xirmaysanayo dhulkii oo si dhaqan xumaa loo tegayo dhulka haddaad badbaadisid nolosheena way badbaadaysaa marka inay noqoto waxqabadkaaga midka ugu muhiimsan sidaa deegaanka u badbaadin lahaa midda labaad oo kaaga mahad celinayo waddada isku xidhaay iyo garow oo aad ku bixisay $10,000 ilaahay oo ka khayr badan kugu bedelo dhiirigelin bay u tahay dadka mas'uuliyiinta dowladda iyo shacabka kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga meel walba inay iyaduna ku daydaan mas-uulkaas baddeena iyadana waxaan ku sheegayaa xaalufkii ugu badnaa ayaa ka socda dhowaan nairobi shir lagu qabtay badda adduunka ugu boobka badan waxaa loo aqoonsaday baddeena khayraadkii ku jiray waxaa ugu badan oo la baxa waddanka iiraan ayaa 34% la baxa masar baa la baxda yemen baa la baxda koonfur afrika la baxda seychelles baa la baxa spain baa la baxda faransiiskaa la baxa innaguna inaynu ka baahannahay dadna ay malaayiin dollar baddeena ka samaystaan oo ay andaro inta gobolka nugaaleed ee ilaa iyo waxaan malaynayaa dhinooda miya xagga ugu xigtay xaggana dhaliba ilaa intaas waxa weeye intaas mas-uuliyadeeda ka qaadatay madaxda dowladdu markii ay tagtay xeebta ay waxay ugu tagtay maraakiibtii jariifka ahay oo gufka taagan xeebta taagan sidoo kale markii garacan ugu tagtay oo aan anigu la socdayn xeebta ayay ugu tagtay raggii dhallinyarada qaar ka mid a madaxweynaha waxay ku yidhaahdeen madaxweyne dhallinyaradii burcadbadeedda la oran jiray baan ahayno hadda laga reebay hadda waxaan wax ka qabaa haddii kana annagaa ku filan aan ku faso dowladdu waxay qaadatay musiibo qaran in loo aqoonsado laakiin wadacaad la reebka waxa loogu daro musiibo qaran in anfici mayso baddeennii waxaa ku socda boob aan caadi ahayn 50% baa lagu qiimeeyey khayraadkii baddeena ku jiray in lala qaxay ووحي إلا هو كعب إنتاجه كمان تبدأنا إنه تدرسنا إن قال في إن الدنيا إنه بدأ النساء وباو إنه قلنا إنه مسكفر فدينه وغير اللي غير مسكفر وتم الدفاع عنه يا هذا كنت دفاع عنه يا هو كنت دفاع عنه يا ما أنت وحنا وباهنا بدأنا إنه العاشر عمره نقط دونيه قبل كصالح أو نقطة بدي يسوي تكنيك ولا أدري كذي أم سعيد داري تراكيش أنت كغر ديستي حبا أنت ديست كل هذا بكرة عديد مرة بعد وحكوا لنا بني سولو أنت وحكرت كها ورسي كورا بلد بعدين كورا شبابيا أيام نقول وحدة ترى يتاجر إنسان ديار كورا إلى أن يلقى كقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gesiga dhulkiisa dusha u horseeda geerida dishaay geedka habo